waxaan maanta aad iyo aad ugu faraxsanahay runtii inaan isugu nimid arrin ay dad badan hore uga hadleen oo ah soo wareejinta hawada Soomaaliya in laga maamulo waddanka gudihiisa. dad badan oo Soomaali ajnabi ah ayaa waxay inoo sheegeen marar badan inaynan suurtagal ahayn in la soo wareejiyo hawada Soomaaliya oo laga maamulo waddanka gudihiisa. maanta waxaan marag ka nahay sidii aan ku ballan qaadnay 28 bishii December 2017 in hawada Soomaaliya laga maamulayo maalinta ka bilaabata laga maamuli karo waddanka gudihiisa inay maanta noo soo guureen shaqaalihii halbowlaha u ahaa maamulka hawada Soomaaliya. shaqaalahani oo ka shaqeynayay Nairobi ilaa iyo sanadkii 93 deganaa Nairobi. 34 qof oo shaqaalahaas ilaa ay 34 qof shaqaalahaas kamid ah ayaa maanta waxay u soo guureen waddanka gudihiisa si permanent ah joogto ah ayay waddankani ugu soo guureen. waxaa maanta marqaati laga yahay in soo wareejinta hawada Soomaaliya oo aanan ahayn wax sahlan ay reality noqotay oo maanta ay dhab tahay shaqaalihii khubarada ahaa Soomaali ah oo deganaa waddanka Kenya intaasoo sano inay hadda soo guureen maanta ka bilaabatana waddanka gudihiisa ay degan yihiin lagana maamulayo waddanka hawada Soomaaliya in laga maamulo waddanka gudihiisa maanta inay reality tahay. maanta waa maalin weyn waa maalin taariikhi ah. arrinta maamulka hawada Soomaaliya sidaad la socotiin dad badan oo Soomaali ah ayaa naftooda ku waayay. ma ahayn arrin fudud si sahal ah laguma soo wareejin laakiin maanta sida aad indhihiina ku aragtiin shaqaalihii hawada maamulayay wayna la joogaan way soo guureen waddanka gudihiisa ayaa laga maamulayaa. meeshii ay degi lahaayeenna waad arki doontiin hadduu Ilaahay ka raali noqdo. waxaan rabaa runtii inaan idiin sheego arrintaasi inkastoo niri arrin sahlan ma ahayn inay dad ku dhaawacmeen inay dad ku dhinteen maantana aan halkan ku joogno annagoo aad ugu faraxsan in hawada Soomaaliya waddanka gudihiisa laga maamulo. waxaan aad ugu mahadcelinayaa dhammaan inta ka soo shaqeysay soo wareejinta hawada Soomaaliya inta u dhabar adeegtay ayagoo qaarkood in badan ay ka shaqeynayeen ayagoo voluntary ah lacag aanan ku qaadanaynin inay arrintaasi ka soo shaqeynayeen. waxaan aad ugu mahadcelinayaa madaxweynaha xukuumadda federaalka Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Maxamed Farmaajo, ra'iisul wasaaraha Xasan Cali Khayre oo gacan weyn naga siiyay arrintani noo madax baneeyay wax alla waxaan rabnayna nagu gacan qabtay ayagana aad ayaan ugu mahadcelinayaa. maareeyaha hay'adda iskaama oo hadda lug kaga jaban Nairobi asagoo arrintan ku dhex Italia lug kaga jabay isagoo oo arrintan soo wareejinta hawada ka shaqeynaya. waxaa kaloo u mahadcelinayaa dhammaan shaqaalaha hay'adda duulista saadaasha hawada, shaqaalaha wasaaradda gaadiidka iyo duulista hawada, saxaafadda oo in aad ah nala shaqeysay, khubaro Soomaaliyeed oo waddanka gudihiisa iyo dibaddiisa kala joogta oo si hagar la'aan ah inagala shaqeysay soo wareejinta hawada. waxaa runtii ummadda Soomaaliyeed dhammaan ugu bishaareynaya wixii la lahaa suuragal maaha inay maanta suuragal tahay hortiina ay taalo oo shaqaalihii Nairobi deganaa ay noo soo guureen halkan si permanent ah ay u degan yihiin. wassalaamu calaykum waraxmatullaahi